هاي kusoo dhawaada cashirkan cashir imtixaan ah halkaan ka socotaan waa Conan Academy waa aniga Maxamed Faarax cashirka maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa accounting and equation isbarbardhigga xisaabaadka ee asset-ka in equity-ga and liability cashirkan ugu horeeya ee accounting and equation ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa sida buugga double entry ay ugu qormato xisaabaadka marka business-ka cusub la furaya iyo ilaa marka business-ka uu shaqeeyo muddo sideedaba asset-ka ayaa waxaa lala barbar dhigaa liability-ga oo ah lacagta business-ka lagu leeyahay taasoo lagu daray lacagta business-ka lagu bilaabay capital ayaa loo yaqaanaa lacagta business-ka lagu bilaabay owner-ka oo leeyahay asset-ka oo dhinacahan ayuu waxa u dhigma dhinac kale oo ah liability waxa business-ka lagu leeyahay taasoo lagu daray lacagta business-ka lagu bilaabay soo markasta waa in labada dhinacba ay balance noqdaan isku noqdaan xisaab isla go'an ama isku mid ah sidan ayaa xataa waxaa loo qori karaa lacagta asset-ka ayaa waxay u dhigmataa lacagta business-ka capital introducing oo ah lacagta business-ka lagu soo kordhiyay ama lacagta business-ka lagu bilaabay taasoo lagu daray lacagta business-ka faa'iiday taasoo lagu sii daray liability saddexdan qayb oo isla dhinacahan oo lagu daray asset-ka oo dhinacahan ayaa u dhigma lacagta buugga ee business ku qoran manager waxaa la rabaa capital introducing return profit and liability oo intaba la isku daray in ay isla mid noqdaan asset-ka sidoo kale ayaa waxaa loo qori karaa net asset-ka oo ahan lacagta faa'iidada ahan total asset-ka oo business-ka leeyahay taasoo oo laga jaray wax kasta oo ah total liability oo lagu leeyahay net asset-ka ee ah lacagta oo dadka owner-ka ama dadka business-ka invest gareeyeen ay leeyihiin ayaa ah total asset oo laga jaray wax kasta oo business-ku lagu leeyahay haraaga soo hara ayaa ah lacagta equity-ga ee dadka owner-ka ee business-ka ay leeyihiin waxaa kale oo loo qori karaa sida tan oo ah capital introducing lacagta business-ka lagu bilaabay taasoo lagu daray lacagta business-ka faa'iido sameeyay taasoo laga jaray drawing oo ah wax kasta owner-ka oo lacag la baxay haddii owner-ka uu la baxay lacag oo owner ka qaatay qasnada business-ka ayaa waxaa ah in lacagtaas laga jaro sidii lacagta qasnada business-ka ay balance u noqoto taasoo lagu daray wax kasta business lagu leeyahay sidan ayaa ah si kale oo loo balance looga dhigi karo qasnada business-ka oo ahan lacagta business-ka lagu bilaabay ama lacagtii lagu kordhiyay oo sanadkii markuu soo xirmanayay lagu daray lacagtii faa'iidada uu business-ka sameeyay laga jaray business-ka wax kasta oo owner-ka oo ka qaatay taasoo lagu sii daray liability taasoo ayaa noqonaysa sanadka markuu business-ka dhamaaday in business-ka dhinaciisa credit-ka ahan oo waxa business-ka lagu leeyahay oo ahan lacagtii owner-ka leeyahay lagu daray lacagta faa'iido sanadka la sameeyay iyo laga jaray wax kasta owner-ka ka qaatay business-ka lagu daray lacagtii business-ka lagu lahayo oo ah isku dhan lacagta business-ka lagu leeyahay iyo lacagta business-ka lagu leeyahay uu leeyahay aan dhahay oo asset-ka ahan in isku noqdaan lacag isla go'an oo isku mid ahan asset-ka waxay u dhigmataa ama la mid tahay lacagta business-ka oo owner-ka leeyahay ama business-ka lagu leeyahay oo lacagtii owner-ka dadka iska lahaa ay ku leeyihiin taasoo lagu daray sanad kasta business wuxuu faa'iido sameeyaa lagu sii daray liability oo isku dhinacahan soo sanad kasta markuu business-ka lacag badan shaqeeyo ama uu sii socdo ayaa waxaa sii kordhaya lacagta equity-ga ee dadka owner-ka leeyihiin soo owner-ka haddii lacagta dib loo celinin oo defend ahaan loo siinin oo sharekiisi lacagta faa'iido ahaa loo siinin lacagtaas hadda sanadkaas shareka company-ga ay dadka owner-ka iska lahay ama business-ka investment ku sameeyay hadda shareka dib lagu celin lacagtaas business-ka equity-ga ayaa sii kordhayso soo equity wax kastoo ku sii kordho lagu daro liability-ga business-ka leeyahay ayaa waxa u dhigma asset-ka business-ka dhammaan uu leeyahay soo markasta waa in isku mid noqdaan asset-ka oo business-ka leeyahay haddii laga jaro wax kasta oo lagu leeyahay ayaa soo haraaga soo hara ayaa ah waxa dadka business-ka iskala faa'iidadooda ah oo shaqeysa ah haddii aan soo qaadano tusaale business hadda shaqeynaya day 1 maalinta ugu horeysa ahan business-kan ayaa ah business maalinta ugu horeysa transaction ugu horeeya dhacaya maalintii ugu horeysa cali ninka la dhahay introducing business wuxuu business-ka oo ku soo daray ama ku bilaabay aan dhihi karnaa 1000 oo cash ahan maalinta labaad cali wuxuu soo iibsaday baabuur oo qiimihiisa yahay 400 oo wuxuu ku soo iibsaday cash
maalintii saddexaad oo cali businesskiisa uu shaqaynayay wuxuu u baahday lacag dheeri ahaan bankiga ayuu aaday wuxuu soo qaatay lacag loan ahaan oo deyn ku ahaan businesska oo 1000 ahaan maalintii afaraad cali wuxuu aaday suuqa sidoo businesska badeeca ugu soo iibsado sidoo badeecada dib u gado oo lacag faa'iido ka sameeyo so business waa inuu markasta oo faa'iido sameeyo sidoo u shaqeeyo so cali wuxuu soo iibsaday alaabtaas oo qiimaheedu uu fadhiisay 300 oo lacag cash ku soo iibsaday maalintii shanaad cali alaabtu soo iibid ayuu dib iskaga iibiyay wuxuu ku iibiyay 400 cash ahaan wuxuu ka sameeyay faa'iido ahaan 100 so xisaabtan oo shanta maalin businesskan oo ownerka ninka cali lahay oo leeyahay sidee loo ugu qormanaysaa buug xisaabeedka ama double entry bookkeeping sidee u qormanaysaa sida account equationka waxay u qormanaysaa day 1 maalinta ugu horeysay ee cali oo businesskiisa uu bilaabay 1000 ah in cali oo businesskiisa maalinta ugu horeysay qasnada ay ku dhacday 1000 oo lacag cash ah sidoo kale cali businesskiisa oo maalintaas waxaa lagu leeyahay 1000 taasoo ahan capitalka businesska ahna lacagta equity-ga ahayd ay ku leeyihiin dadka ownerka taasoo u dhigmata buug xisaabeedka cali equity-ga lagu daray liability markastaba xasuusnaaw waa in asset isku mid ahaadaan lacagta businesska lagu leeyahay oo ahan equity-ga iyo liability iyo lacagta businesska oo leeyahay oo total asset-ka ah so asset-ka businesska aan ku bilaabno waxay ahayd 1000 cash waxaan ku darnay lacagta businesska lagu bilaabay ee nimanka equity-ga ay ku leeyihiin oo 1000 ah ilaa hadda wax liability aan maan soo qaadan so aan u maana day 2 ninka cali ahay wuxuu soo iibsaday baabuur wuxuu ku soo iibsaday 400 cash aan sidan ayuu qormanaysaa businesska ayaa maalintaas wuxuu helay asset qiimaheedu yahay 400 businesska ayaa maalintaas wuxuu spendi sameeyay ama qarash gareeyay 400 oo cash ah so maalintan labaad cali businesskiisa buugga businesska wax isbedel moona dhicin because waxa dhacay asset ayaa asset lagu bedel baabuur oo qiimihiisu asset 400 la keenay lacag ayaa baxday so asset maalinkaas baa so maalinkaas businesska wax isbedel kama dhicin laakiin transaction aan isbedel aan ku sameynin businesska ayaa dhacay so aan fiirina sidee u qormanayso transaction businesska maalintii ugu horeysay cali oo wuxuu business ku bilaabay 1000 cali ayaa wuxuu ku soo iibsaday 400 asset ku soo iibsaday so asset aan ku soo iibsaday businesska asset ayaa soo gashay lacag kaar ahaan oo asset ahaan oo qiimihiisu 400 ayaa businesska soo galay sidoo kale 400 ayaa business ka baxay 400 ayaa business ka baxday 400 ayaa business soo galay so businesska ilaa hadda wuxuu joogaa 1000 assetka caalamiga isbedelan equity-ga ahead lacagtii ownerka ahay day 2 wax iskama bedelin oo wax businesska ownerka lacag ku soo dayn lacagna muu ka qaadan so day 2 wax liability ilaa hadda businesska muu soo qaadan aadna day 3 businesski wuxuu u baahday lacag dheeri ahaan wuxuu ka soo qaatay bankiga maalinta oo day 3 lacagta bank ka soo qaatay businesska ayaa isla maalintaas qasnada businesska waxaa ku dhacday 1000 cash sidoo kale buugga ee deynta ee businesska ayaa waxaa lagu qoray 1000 so maalinta saddexaad businesska waxaa qasnadiisa ku dhacday 1000 oo cash oo asset ahaan oo businesska asset ahaan u xisaabinaya sidoo kale dhinaca kale ee buugga lacagta deynta oo businesska lagu leeyahay ayaa waxaa ku biirtay 1000 ay ku leeyihiin bankiga haddaba aan fiirino sidii u qormanaysa day 3 as account equation so assetka 1000 ee businesska lagu bilaabay oo cali cash ku bilaabay waxaa ku soo kordhay 1000 oo ah lacagtii bankiga aan ka soo deynsan so day 3 waxaan haysanaa asset ah 2000 aan haysanaa equity-ga day 3 ilaa hadda wax nig dadka ownerka investment-ga businesska ku bilaabay oo cali oo yahay ama dadka saaxiibadiisa ahaan wax lacag businesska ay ku soo dareen laakiin day 3 cali wuxuu soo qaatay lacag deyn ah oo 1000 ah so maalinka saddexaad
cali businesskiisa qasnadiisa waxay ku xirmatay asset oo qiimaheedu yahay 2000 lacagta uu ku bilaabo businesska oo ahay 1000 iyo lacagta lagu leeyahay oo ahan 1000 so taas oo macnaheedu tahay haddii lacagta oo businesska lagu bilaabay iyo lacagta lagu leeyahay la isku daro waxay noqonaysaa 2000 hadda 2000 iyo 2000 waxay noqonaysaa lacag isku mid ah and aadno day 4 cali wuxuu soo iibsaday alaab badeecad ay qiimaheedu tahay 300 wuxuuna ku soo iibsaday cash maalintaas cali wuxuu businesska uu helay alaab qiimaheedu ugu fadhiisan 300 sidoo kale cashka cali qasnada cashka ahayd waxaa ka baxay lacag 300 حتى في معناتها واحد بزنس بدل ما دعين because cash inventory ayaan soo helnay oo warehouse ka aan soo gashanay taasoo ahan current investment current inventory ahan current asset ahan oo lacag current ahan wax oo ahan muddo ka yar hal sano in cash loo bedelay ahan cash oo physical cash oo haysanayna waan iska bixin so as account equation maalintaas waxaan ay qormaysaa so 2000 ayaa hore u haysanay 3000 ayaa waxaan ku soo gadanay cash ahan ayaa qaanada inaga baxday oo negative price soo galay isla sidoo kale waxaa noo soo galay 3000 oo inventory ahan so day 4 2000 ka asset-ki waxaan taaganahay 2000 wax isin bedelay equity ahan lacagti owner ka ahayd oo lagu bilaabay day 4 ilaa hadda businesska lacag ma ku soo dirin lacagna may ka qaadan lacagti deynka ahayd ee lagu lahay businesska ee 1000 ilaa hadda maynan bixinin ee 1000 so day 4 maalinta afraad businesska ayaa wuxuu ku xirmay 1000 oo ahan lacagti dadka ay ku leeyihiin investmentiga dadka iska lahay 1000 oo lacagti liability ahayd oo businesska lagu lahay oo loanka soo qaatahan iyo assetkiisa oo businesska dhamaan ahan oo 2000 day 5 businesska ayaa wuxuu dib iskaga iibiyay badeecad joogta 300 ayuu wuxuu ku iibiyay 400 oo cash ah maalintaas businesska ayaa wuxuu helay revenue maalintaas wuxuu sameeyay businesska wuxuu helay revenue oo 400 ahna kaas badeecad iska iibinay warehouse kana ugu jirta ayaan iska iibinay waxaan ka helnay faa'iido waxaan kaloo maalintaas aan helnay payment maadaama aan ku iibinay cash waxaan helnay 400 cash waan helnay so markasta oo businesska uu iibiyo oo dhaama transaction wax iska iibiyo waxay kordhinaysaa faa'iidada businesska haddii ay faa'iidada businesska ay kororto waxaa kaloo kordhaya lacagta equity-ga ay dadka ownerka ay leeyihiin so ownerka lacagtiisa iyo faa'iidada businesska way isku xiran yihiin so haddii faa'iidada businesska ay kororto lacagta ownerka uu leeyahay oo businesska way kordhaysaa day 5 assetka businesska iska lahay waa 2400 oo alaab ahan oo cash ayaan helnay so businesska assetkiisa waxaa haysanaa 2100 oo ahan 2100 taasoo ahan alaabtan badeecadayni marka hore waxay noogu fadhisay 300 ay noogu fadhisay 400 aan ku iibinay 100 aan ka faa'iidnay equity-ga businesska nimanka iska leh owner iska lahay maadaama 1000 ay business ku bilaabeen ilaa day 5 ayna lacag kala bixinin oo businesskana wax faa'iido u sameeyeen day 5 businesski marka ugu horeysay wuxuu awood u helay inuu wax iibiyo oo faa'iido sameeyo so nimankii businesska lahay hadda waxay faa'iido ugu horeysay waxay sameeyeen 100 so equity-ga hadda waxaa ku darsoontay 100 lacagta liability-ga businesska lagu lahayn ilaa hadda lan bixin so 5 maalmood ee businesska shaqeynay waxay ku soo xirmatay assetkii oo ahaa 1200 equity-ga dadka businesska lahay 1100 ahan iyo lacagta lagu leeyahay oo 1000 ah so haddii aad isku dartay equity-ga oo ah lacagta dadka ownerka ay leeyihiin aad ku dartid lacagta liability ee businesska soo qaatay waxay la mid tahay lacagta dhamaan assetka uu ku shaqeeyo hadduu businesska sidiisaba uu doonayo ama uu doonto acquire for asset sida soo socota markasta oo businesska doonayo waxay reduce ay hoos u dhigtaa qiimo kale correspond of amount
so haddii uu businesska sidiisaba uu soo gadanaya wax kasta asset qiimo kasto asset ahaan waxay naaqusisaa correspond haddii aad baabuur soo gadanaysid baabuurka kaasha ka bixinaysa so kaashkaada ayaa naaqus ka bixinaya so baabuura ku soo galay kaasha ka baxay so markasta marka business soo baxay labada qaanad ee business ka ahan midna naaqusa ku dhacay midna way soo kordhaysaa so marka labaad oo aha haddii oo businesska oo qasnadiisa ayna corresponding ayna saameyn waa marka businesska uu ku soo qaatay baabuurka wax deyn ah taasina kale ayna waxay corresponding for liability qaybta liability ayay kordhinaysaa and increasing of the equity of owner so markasta oo businesska oo wax asset ahaan oo soo keeno oo business ku soo dara assetkaas iyo faa'iido dhalisa markasta waxay kordhisaa lacagta oo businesska damaka ownerka ay leeyihiin haddii oo investing capital haddii businesska oo dadka ownerkan ay lacag ay ku invest galayaan ay ku soo kordhiyaan lacagtaas ayaa lacag kor u qaadaysa lacagta oo increase ku sameyn equity ownerka ku shaqeynaa haddii ownerka bishii hore lacagta ku shaqeynaa ee 1000 tusaale ahaan haddii uu lacag kale ku sii daro so lacagta ownerka ayaa markastaba kor u sii qaaday numberka lacagta ayaa sii maadaama oo lacag badan ku soo daray businesskiisa an faa'iidada businesska la sameeyay ayna waxay kordhisaa lacagta equity-ga ee ownerka ama dadka investment businesska ku ahan ay leeyihiin tusaale ahaan aan ka jawaabno su'aalahan oo ahan su'aala khuseeya casharadii soo dhaafnay oo ah ninka la yiraahdo Mr. Farax starting for grocery waxay dhaheen Mr. Farax ayaa bilaabay shop January 2017 ayuu bilaabay and wuxuuna ku bilaabay 1000 wuxuu ku bilaabay 10,000 ayuu ku bilaabay in the year 31st December 2017 the shop ayaa wuxuu sameeyay 5,000 ayuu faa'iido ayuu sameeyay Farax ayaa qaatay 3,000 ayuu business ka qaatay so businesska investment Farax wuxuu ku soo bilaabay businesskiisa markii ugu horeysay 10,000 Farax faa'iido businesskiisa wuxuu sameeyay 5,000 isla sidaas daraadeed wuxuu kala baxay 3,000 ayuu ka qaatay meeshiis waa year sanadkii markuu ahay 2017 in the year 31st 2018 Farax ninkii ownerka businesska lahaa ayaa wuxuu ku soo daray businesskiisa wuxuu ku soo kordhiyay lacag u dhigmata 2,000 aan sanadkaasna businesska ay wuxuu sameeyay faa'iido ahaan waxay sameeyay businesskana wuxuu sameeyay lacag u dhigmata 7,000 isla sanadkii ayuu Farax wuxuu ka qaatay businesskiisa lacag u dhigmata wuxuu ka qaatay 4,000 waxaana la weydiiyay marka waxay dhaheen prepare the capital section of a statement of financial position as 31st December 2017 and 31st December 2018 waxaa diyaarisaa capitalka ahaan ee Cali wuxuu ku xirmay sanadka markuu ahaa 2017 iyo 2018 haddii shaxdii hore aad xasuusida ama dib ugu noqotid Cali businesska wuxuu ku bilaabay lacag waxaan ku dhahaynaa open capitalka Cali wuxuu ku bilaabay lacag u dhigmato 10,000 open capital so open capital 10,000 capital introducing Cali sanadkaas wax oo introduce aan businesska moonu ku sameyn laakiin businesska ayaa wuxuu sameeyay faa'iido ahayd 5,000 oo faa'iido ayuu businesska sanadkaas sameeyay Cali Farax aan dhahnay Farax ayaa businesska wuxuu kala baxay lacag qiimaheeda ahayd 3,000 lacag qiimaheeda 3,000 ayuu kala baxay so sanadkan 2017 ka ahan ayaa wuxuu ku soo xirmaa 10,000 oo lagu daray
faa'iidada businesska tameeyay oo ahayd 5,000 oo laga jaray lacagtii oo owner kala baxay. So markasta waxay noqonaysaa businesska tani waxay noqotay lacagta businesska lagu bilaabay oo qasnada businesska markii ugu horeysay lacagta lagu shubay sanadkii markuu dhamaaday businesska bishii koowaad ilaa bishii 12aad faa'iido wuxuu sameeyay oo 5,000 ahan 5,000 uu sameeyay laakiin ninkii ownerka ahay ayaa wuxuu kala baxay 3,000 kala baxay. So sanadkaasi businesska wuxuu ku xirmaa lacag qiimaheedu oo u dhigmato 12. So 12,000 ayuu sanadkaas ku xirmay. sanadkan waxaan dhaynaa lacag 2017 waxaan ku soo xirmanay lacag qiimaheedu u dhigmato 12. waxayna weydiin sidoo kale 2018 2018 muxuu ku xirmay. So sanadkan 2018 open capital ma haysano waxaan haysanaa lacag loo yaqaano open capitalka sanadkan waxay noqonaysaa open capitalka ayaa noqonaysa lacagtii 2017 ay closing aid. So lacagtan closing ayaa waxaa noqonaysa open capitalka ee 2018. So 2018 waxaan haysanaa lacag 12,000 ahan. So waxayna dhaheen ninkii oo ownerka businesska lahay ayaa wuxuu ku soo daray 2018 lacag u ah 2,000 ayuu ku soo daray. businesska ayaa wuxuu sameeyay faa'iido ah 7,000. businesska wuxuu sameeyay faa'iido 7,000 ah. sidoo kale ninka businesska ownerska lahay ayaa wuxuu ka qaatay businesska lacag ah 4,000. So in 2018 businesska wuxuu ku xirmayaa capitalka businesska ayaa ku xirmaya lacag u dhigmato yeerka sanadka markuu ay 31 December 2018 lacagta capitalka ahna ee businesska ku xirmaya waxay noqotay 17. su'aasha hadda dib u xasuusataan waxaana la weydiiyay waxayna prepare the capital of section of statement of financial position in 31st December 2017. So 2017 the capitalka oo ownerka leeyahay oo business ku xirnay waan soo calculate waxaan helnay 12,000. sidoo kale waxaana la weydiiyay lacagta oo ahan 31st December 2018 ayna waxay noqotay 17,000. la soo casharo soo socota aan ku qaadi doona double entry and credit and debit. waad mahadsantiin.